bishii Noofembar sanadkii 1983 ayaa jabhadii SNM ay qaaday dagaal ay ku gashay dhulka Buuraleyda oo dad badanina ay ku dhinteen. saraakiishii dagaalkaasi hogaaminaysay waxaa ka mid ahaa Ibrahim Dhagaweyne ninka la yidhaahdo. Dhagaweyne oo aanu arrintaasi ka waraysanay waxaa marka hore aan weydiinay sababihii ku kalifay inay dagaalkaasi ay qaadaan. waxaanu yidhi dagaalka Buuraha waxa lagu kalifay maamulkii hoose oo aan ahayn kii siyaasiga ahaa ee ciidanka Itoobiya ee qaybtan bariga xukumay ayaan muran badan laga dhexdhacay. marka maxay waxa Ibrahim ka dhex galay waxa ku muranteen idin dhex maray muxuu ahaa waxa na dhex maray waxaad moodaa inay jabhadihii xoreynka dhaliil u soo jeediyeen oo shirar aanu galay oo markaas ilaahay lagu dooranayay iyada taagnaa xaalado kale oo SSDF gudaheeda ka taagnaa in isku darsilaantayadii aanu isu tagayeen labadii jabhadood ayna warmaa waxa rajaba ma laha oo aad moodo mid sanad oo joogay magaalada Leeherer oo damaso loo oran jiray in uu cadaadis badan saaray SNM siyaasi iyo ciidanba waa la isu yimi kala la gaaray waxa weeyaan wadankeena aan gallo marka qoladii ciidankana qorshe sameeyaa la yiri ciidankana diyaariga waa saddex meelood ba SNM ay wax ku diyaarinaysay ciidan badan markaa maanu lahayn laakiin ciidan tayale ayaa markaa joogay oo tababarka ku jiray ciidankii Sayid Cali loo oran jiray lixle Allahu naxariistay iyo aadan Saleemaana bari baa la diyaariya dabeetana anigii xataa yeesna galbeed diyaariya Ibrahim koodboorna ciidanka dhexdii diyaarinayay waxa way saddex meelood baan isu diyaarinay galbeed dhexda iyo bari waa ciidankii dhexe markaa waxa dhacday dagaalkii ciidankii awaare ka soo baxay inay weeraraan oo lixda oo halka ku dhinto qorshaha iyagii kamaanu noqon halkii horaan uga sii wadnay saddex ciidan Abdullahi Askar baa ciidankii galbeedka loo dhiibay ciidankii lixle uu ka dhintay Ilaahay u naxariistay aniga kaxeeyay ciidankii barigana Maxamed Kaahin rag badan oo kale oo saraakiil ah iyo waxgaradkii iyo aqoon-yahanadii way nagala qayb galeen ciidankan kaxaysay waxa 129 ciidan sahan badan oo dawladeed baa naga soo horjeeday xaaji saalax meesha la yidhaaho ayaanu ka galnay waxa weyn intaa waxaanu limaynay raadkayga dhinacaan u baxnay inay gartaan shan baabuur baan watay halkaasaanu waxaanu ka galnay go'da yar meesha la yidhaaho waxaan sii soconay 18 saacadood oo xaalado adag iyo ciidan meel walba naloo dhigay waxa weyn dagaalkii Buuraha ayaanu bilownay 7 dagaal baan ku galnay meesha la yidhaaho waxba nagamay dhiman dhul aad u istiraatiijiga oo biyaha ka haysano ayaanu galay ciidamada idin la dagaalamay waxa ka yimaadeen markaa ciidamada waxa ka yimaadeen ilaa berbera ciidamo badan bay isu keeneen ciidan Hargeysa joogo dabargoynta loo oran jiray markaanu halka marayno aan maalintii dhaxaad ku jiro ayaanu laba qaybood u kala goonay waa tahay qaybi waxay qabatay oo iyo xagga bari Maxamed Cali ninka la yiraahdo Cabdirasaaq ayaa watay qaybtii kale xaggana oo soo noqotayna anaa soo kaxeeyay oo gacan libaax iyo ereyadan ka hawlgashay iyo boosaa weyn ee marka la yiraahdo marka aan halkaa ku soo noqonay kullayda waxa weyn nin diyaarad iyo gaadiid iyo warisgaarsiin sita adna 129 ilaa halkaa markaan marayay waxa iga dhintay 3 nin kaliya labana miinada naga disay nin kaliya boosa iga dhintay waata in dadweynuhu si fiican bay noo caawiyeen dhaawaciyagaan ugu dhiibanay subaxii intay shaqo ka qaadeen bay burcageeyeen sababna gaashaamay maalintii u direen maalin labaadii gaashaamu joogay ninkii marka dadkaagu dee kula hawlgalayo wax weyn bay qabanaysaa waata dagaalkii waxaanu sii wadnay markaa gacan libaax dusheeda ayaa haddana dagaal lagu qabsadeen kaasna waanu ku kala googoonay mar walba u dagaalka cusub saad usii furfurmaysay waxaanu ku dagaalanay oo barxadlaadkiisa waa ka waran tahay Ibrahim markaan aad leedahay laba nin baa ku saaray waxa ciidankaaga hawo kala lumay markaa mar walba u dagaalku qabsadaba waa la idin kala goynaya waa la idin dhex maraya oo ciidan laxaad leh oo tiro leh oo hubota oo tignika wata waxa weyn waa la furfurmaya markaa markii dambe misaas ugu soo hadheen adiga misaas ugu soo hadhay waxaan isugu soo hadhay 13 kiiba aan hadana ku furfuranay afar baan isugu soo hadhay aniga iyo laba arday oo yaryar iyo nin xasan dayax la yiraahdo odagii macallimiinta intellectualska ahaa
أي حسب ما مشي دم بيسكي سو حدني وأذكر تبان وقدام بنتي رجي بقول يسقالي لا تنك هاي هذا وشيء مركي دم بيع الله بتاعي مسا كوسو بحي واللي هي تبان بعد نقدر نسوي أنت كلا وصل بحي وأذكر أنت قولون في كلا قلبيت قلي جنا كل ترتيب تفاصيل شيء بدنا هي إنك الله يرحم عبد الله أسكر وعيدك هاك حي ظروف أذقنا ويلقل من دجانا ومكان يحين حلدو دعونا يسوع وعيدك هدرج اللي يك هيدو اللي عبين سديد المعلومات بلا عنده كدجانا ما يجي بلا بيها مركا حالة عروس قوية قبل بني آدم كسومرين بسومرين إني ساهي إبراهيم وكاد حد جلاينات إني ساهي مثلا إذا ما رجع قلبيت كل ساهي بقول يا فرسان بيها هاي إني ساكت صان قبي أقول لك دلوقتي من الباء يا دمشق هاي sida haddaba dhegaystayaal ka muuqata hadalka Ibrahim Dhagaweyne marka laga reebo khasaaraha dhinaca kala gaadhay SNM ta dad badan oo aqoon-yahano u badnaa ayaa kaga dhintay waxaa markaasi la isweydiin karaa dagaalkaasi maxay ka faa'iideen SNM